5 clicks. bishan Abriil 2023 waxaa ka bilowday Suudaan dagaal military. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada saaxiibayaal mar kale. Suudaan waxay ku taalaa waqooyiga Afrika. Suudaan mar bay noqotay waddanka ugu weyn Afrika. waxaa gumaystihii Ingiriiska. sidoo kale waddankani wuxuu xuduud la wadaagaa wadamada Masar, Itoobiya, Chad iyo Eritrea. Suudaan xornimada waxay qaadatay 1956 iyadoo isla sanadkaaba ku biirtay qaramada midoobay. waxaana xukunka qabtay xukuumad military ah isla markaana rabtay inay waddanka ku xukunto diinta Islaamka. intii u dhaxaysay 1972 ilaa 1982 Suudaan waxaa ka dhacay dagaalkii abid ugu dheeraa taariikhda, sidoo kalena ahaa dagaalkii ugu dheeraa Afrika. dhinacyada isku haystay dagaalkaas ayaa ahaa koonfurta Suudaan iyo sidoo kale waqooyiga Suudaan. waqooyiga Suudaan waa meesha caasimadda Suudaan ku taalo, sidoo kale halkan waxaa degan muslimiinta. koonfurta Suudaan waa dhul ku fiican nooc ka mid ah kheyraadka dabiiciga ah, sidoo kalena waxaa ku nool Kiristaanka. Suudaan waxay ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay ee uu ka hana qaado Islaamku. si fiican ayay noogu faaftay diinta Islaamku. waddanka Suudaan waxaa caasimad u ah magaalada Khartoum, sidoo kale waa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. Khartoum waxaa mara webiga Niil. magaaladan waxaa mamnuuc ka ah khamriga, waxayna si wanaagsan ugu dhaqmaan diinteena suuban. sidoo kale magaalada waxyaalaha mamnuuca ka ah waxaa ka mid ah inay dumarku soo dhex galaan goobaha ay raggu joogaan ama rag waqtiga ku qaadanayaan. dumarka ayaan wada qaadanin xijaabka, haddana saas oo ay tahay lagama ogola ikhtilaadka ama isdhexgalka. dalagga ugu muhiimsan ee laga helo Suudaan waxaa ka mid ah lowska, sonkorta, masagada iyo sarreenka, iyo sidoo kale galleyda. sidoo kale dalkani wuxuu hodan ku yahay soo saarista xabagta iyo dawooyinka. 1977 Suudaan waxaa laga helay saliidan oo lagu qiyaasay 500 oo milyan oo fuusto, balse waxaa saameyn ku yeeshay dagaaladii ka dhacay koonfurta Suudaan. maxaa yeelay meesha saliidda laga helay waa xagga koonfurta. sidoo kale dalka Suudaan wuxuu leeyahay macdano aan laga faa'iideysan oo ay ka mid yihiin dahabka, uraniumka iyo sidoo kale ironta. dalkani wuxuu leeyahay warshado aan badnayn. waxyaalaha uu soo saaro waxaa ka mid ah sibidhka, kabaha, saabuunta, saliidda iyo sidoo kale khudradda. si kastaba ha noqotee dalkani si buuxda uma adeegsado awooddiisa wax soo saar. yacni marka loo eego waxyaalaha uu soo saari karo iyo waxa uu soo saaraa wax si dhow ma aha. dalkani wuxuu leeyahay bangiyo ku kala duwan xagga nidaamka. bangiyada ku shaqeeya nidaamka Islaamiga ayaa 1989 gaadhay horumar wacan, halka bangiyadii ku shaqaynayay nidaamyada kale ay awoodi kari waayeen inay sii shaqeeyaan. bangiyadu waxay ku urursan yihiin magaalada Khartoum. tan iyo markii Suudaan qaadatay xorriyadda 1956 waxaa Suudaan soo maray nidaamyo kala duwan, balse Suudaan waxaa ka dhacay afgembiyo military oo dhacay sanadihii 1985, 1989, 2019 iyo sidoo kale 2021. dadka u badan Suudaan waa muslimiinta, waxaana lagu qiyaasaa muslimiinta ku nool Suudaan 97%. dadka inta soo hadhayna waxay aaminsan yihiin Kiristaanka. gobollada intooda badan waxaa dega muslimiinta marka laga reebo gobolka Nuba ee ku yaala buuraha. madhabka ay haystaan muslimiinta ku nool waddanka Suudaan waa Maalikiga. Suudaan ciidamadeeda waxaa lagu dhisay ku dhaqanka shareecada Islaamka, balse dowladahan dambe waxay ku dadaalaan sidii loo heli lahaa dimuqraadiyad. diinteenna Islaamka gaaladu waxay kula jiraan dagaal badan, mana ogola in lagu dhaqmo shareecada Ilaahay dejiyey. si kastaba ha noqotee Suudaan waxay shareecada Islaamka ku dhaqmaysay in ka badan 30 sano. wixii ka dambeeyay 2020 waxaa qabtay madaxtinimada dowlad cilmaani ah. Suudaan waxay diintu soo gaadhay waqtigii Camar ibn Caas ee uu qabsaday Masar. afgamigu ugu horreeyay Suudaan waxaa ka sameeyay Ibraahim Cabuud. 1958 ayuu dhacay. wuxuu xukumayay Suudaan 5 sano. xilka madaxtinimada wuxuu ka degay 1964. waxaa talada la wareegay Al-Khaatib si caadi ah ayuuna ula wareegay, balse waxaa la yaab leh 1969 waxaa afgembi talada waddanka kula wareegay Jacfar.
waxay soo socdaan sanadkii 2019 waxaa talada dalka kula wareegay Afgembi Cabdilfataax. bishan Abriil 2023 waxaa ka bilowday Suudaan dagaal militari oo u dhexeeya Cabdilfataax iyo Jenaraal Maxamed Xamdaan. Cabdilfataax wuxuu ahaa madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee Suudaan, halka Jenaraal Maxamed uu ahaa madaxa ciidanka badbaadada. iska horimaad aad u daran ayaa ka dhacay dalka Suudaan. in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay, sidoo kale dhaawaca ayaa gaadhaya 1,100 qof. dadkaas oo dhan waxay u dhimanayaan u dhaawacmayaan waa 2 taliyo oo isku haysta hoggaanka dalka. labadan jenaraal oo mid ka mid ah xukumo ciidanka militariga ka kalena xukumo ciidanka RSF ayaa khilaafkoodu ku saleysan yahay awoodda dalka. dadka degan caasimadda Khartoum ayaa ka cabanaya biyo la'aan, waxayna sheegtay gabadh ka mid ah inay haysato caagad yar oo biyo ah. dadka intooda badan waxay ku dhintay guryahooda sababtoo ah madaafiicda ayaa guryaha ku dhacaysa. waxaa socda dadaalo lagu doonayo xabad joojin. sidoo kale shacabka ayaa waxay sheegeen in ciidamadii RSF ay guryaha dadka ugu galayaan iyagoo weydiinaya cunto iyo biyo. WHO ayaa sheegtay inay 7 gobol ay ka go'een adeegii caafimaadku, sidoo kale cisbitaaladuna ay buux dhaafeen. waxyaalaha ka go'an waxaa ka mid ah qalabka qalliinka iyo oksijiinta. sidoo kale in ka badan 3,000 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku go'doonsan waddanka Suudaan. si kastaba ha noqotee, waddanka Suudaan waxaa soo maray dagaalo badan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dulqaado dagaalka. waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. inta aynu muuqaalkan ka xiisa badan ku kulmayno waxaan kugu dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.